بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كانوا قهرين مامولك جامعاتك iyo macallimiinta iyo ardadaba iyo dadweynaha kaleba waa mahadnaqaya waqtigoos ka kooban darsiga lagu tala galay maanta wuxuu yahay huwiyatul muslim fi zaman al-awlama qofka muslimka baadisoociisa ama aqoonsigiisa ama sumadiisa waqtigan cawlamadu globalization waqtiga kan dunidu isu furantay midka qura noqotay erayga alhuwiya fi lugha alcarabiya min huwa baa laga soo qaaday waa masdar ama ism mansuub u ah ilaa huwa bay yidhaahdaan waa masdar sanaaciya waxaa looga dan leeyuun xaqiiqatu shay fi cilmi alfalsafana alhuwiya waxay ku tilmaamaan حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره شيء ذات ديسة أما حقيقة ديسة أما قفك بني آدم كا وحقار كيالة مركا هوية الشرحيان مرنا وحل الشرح قف هويدي وحل يسويديا قفك بني آدم كا محادتك أنت كلك الصعة مثلا وراقان يريرا قوسك ينسدنا waxaa loogu talagalay 7 bilyan ee dunida ku nool in laga dhex garto 7 bilyan ee bini'aadamka ee dunida ku nool wax kula ID inaanay jirin basamaadkaaga inuu wato suulkaaga saxeexaaga ama indhahaaga ama wuxuunaad kaga soocantay aadanaha intiisa kale marka wuxuu sheegayaa manant kuma tahay marna waxay ka waramaan alhuwiya alijtimaaciya bulsho waxay kaga soocantay bulshooyinka kale dad meel degaan leh ama mabaadi' leh maxay kaga gedisan yihiin dunida inteeda kale bulsho ahaan qoomiyad ahaan dhaqan ahaan diin ahaan luqa ahaan akhlaaq ahaan values ahaan iyo qiyamkay leeyihiin maxay kaga soocan yihiin dunida inteeda kale sidaa ogeed bay ummad waliba waxay aad uga fakartaa oo la yiraahdaa manahijta tacliimiga waxyaabaha ay u unkantay kamida cilmiga qoro uma unkane waxay u unkantay labaad oo loo sameeyay inay bulshada huwiyadeeda ilaaliso bulshada dadnimadeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxay dunida gaar kaga tahay inay u ilaaliso si ay uma jirto u noqoto marka ziyadatul alwa'y bidhaat in la kobciyo dadku inuu daatadiisa garan karo wuxuu bulshaadka kale kaga soocan yahay marka kaasi waa huwiyat almuslim zaman alawlama markaynu u jeedno ama casr alawlama la yiraahdo awlamadu waa erayadan cusub ee dib laga isticmaalay waa globalization kaasi waxay ku sheegaan inuu yahay waa xurriyatul maali wal badaa'ic wan naas wal afkaar bay yiraahdaan حرية حركة المال وإن دونيدا لعقت سعون كرته هو اللي يسوق بين كراء قيود حريسة شيرين بضايع دي برودكشن كبني آدم خصوص صارين اللي يسوق بين كرا آدناها لفتي سوين يسوق بكرا أفكارتنا إن يسوق بكرته سكال هذا نوت المامنو وحيو فكر يعني حدود اللغة الله inay lunto waxaan la yiraahdo sovereignty ama siyaadaadka wadanadu leeyihiin taa macnaheedu waxa weeyaan dunidoo dhan in la isu furo inkastoo bay leeyaan inay si cadaalad ah isugu furmin waayo dunida badhna duwalka waa maraakisti ama waa centerka dunida laga xukumo dadna waa atraafta dacallada peripherals waa hareeraha dadka degan waxaan xorriyada la siiyay waxaan oran karnaa xaqiiqatan waa dadka centerka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan
ama dadka preferalska hareeraha degani iyaga aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo iclaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo macaayiir ay dejisteen iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba ducafada uma naxdo waa ka soo horjeeda sida awgeed bini aadamka socodkiisa qawaaniin alhijra alintiqaa'iya bay yidhaahdaan waxaa lagu xukumaa qawaaniinta loo dejistay soo gallootiga oo ah mid doorasho leh maalan afrika sanad walba waxay dhahaan 20,000 oo aqoon-yahan bay ka qaataan hadhowna aqoon-yahanada afrika ay u baahan tahay inta dib waxoogaa loogu keenaa 4 bilyan sanad kasta lagaga qaadaa kuwadana bilaash baa lagu qaataa waa qawaaniin saarimo aan la ogolayn cid waliba inay soo gasho iyagu markaa globalizationku iyagu dan u yiyey dhankooda marka laga eego badaa'icdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaba haddaynu nidhaahno calaaqaadka aadanaha ka dhaxeeya wuxuu ku fiicnaa alinfitaax walmusaawaa in laysuna furan yahay nawcin maa is-ixtiraam iyo sinaan wuxuuna ahina inay jiraan oo bini aadamku manaaficda isku weydaarsado iyagu waxay noogu dhawaaqayaan waxaa loo baahan yahay mujtamacaad munfatixa oo liberala oo multiculturalism aaminsan dad furan oo iyaga agtooda alxuriya alfardiya ama identityga qofku uu yeelanayo si uu u dhaqmaya ka muhiimsan ka bulshadu ay leedahay haddaan si kale u tilmaamana dunida maanta inta xooga badan ayaa khatido oo dejisa nidaamka tacliimiga dadka kale wuu qallitaa sistamkoodii iclaamkana iyaga gacanta ku haya qaanuunka caalamigaana iyagaa dejiya international looga la sheegayo adigu waxba kuma lihid qolaa dejisa adigu waa lagugu xukumaa waxaan odhan karaa nidaam alxayaat oo dhan fi lcaalam qolaa marti looye aqaliyadabana yidhaahdeen ama minority groups tira ahaan minority maaha laakiin technologically ama dhaqaale ama xoog ayay u bixiyeen dunida saddexaad xataa labaad maaha dunidaa saddexaad iyada waxa saaran bay yidhaahdaa laba miduun adawabaan inay milanto oo ka mid noqoto laakiin waa milan lagu isgumaysanayo ama waxaa ciddii awoodda ay ku dadaalaysaa alindimaaj maca xifdi alhawiya in bini aadamka loona furmo dadnimadaadana la ilaashado haddaba haddaynu cinwaanka sare sidaa u sharaxno hawiyat almuslim fii zaman alcawlama dunidaa isu furantay muslimku siduu u ilaashan karaa jiritaankiisa dadnimadiisa diinkiisa iyo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysan yahay valueskiisu aaminsan yahay awal waxay odhan jireen alinsaanu ibnu bi'ati bini aadamku waa environmentka uu ku koro bay odhan jireen laakiin inkastoo environmentku ama bii'adu ama deegaanku qofka bini aadamka uu raad badan ku leeyahay koristiisa iyo noloshiisaba haddana bii'ada dunidu bay yidhahdaan waa laba nooc waa bii'a abiiciya oo tan naajaralka ah tan deegaankaad ku nooshahay climatekiisa wuxuu dhaqdo noloshiisa qaabka looga nooliyey kaa abiiciga ilaahay dadka u qaybiyeen ninba dunida meel ka degan yahay iyo albii'a alxadariya bay yidhaahdaan deegaanka civilizationku ama tamadunku ama madaniyadu ay leedahay oo ah bay yidhaahdaan cultureka bini aadamku uu leeyahay diimuhu rumaysan yahay afka uu ku hadlayo dhaqamada iyo caadaadka bulsheed qaab tacliimeedka wasaa'ilkan iclaamiga wax la isku gaadhsiiyo intaasi waa inta
transformationka ku samaysa qofka bini aadamka ah ama bedesha asal ahaan qofka bini aadamkii waa xor ilaahay ba subxaanahu wa tacaala xorriyad siiyey xataa rumaynta alle ayaa xorriyad loo siiyey inuu doorto alle iyo inuu diido laakiin xorriyadda abaalmarkeedu inuu yeelan doono marka waa xor haddana waa mas-uulun can tasarufaatih wa axwaalih waxaa la weydiinayaa habdhaqankiisa iyo waxa uu sameeyo bii'ada uu degan yahayna wuxuu ka soo dhimbiil qaataa siduu u fakerayo iyo dhaqankiisa iyo bulshadiisa si ugu xidhan yahay calaa'iqda ijtimaaciga ee bulshadu ay leedahay iyo wax allaaliya wax noloshiisa ka mid ah waxaana yidhaahdaan markay isweydiinayaan oo miyaad tahay bay yidhaahdaan waxaad aragto iyo waxaad cunto iyo waxaad maqasho mooyaane ma wax kala tahay bay yidhaahdaan waayo qofka bini aadamka ah waxaan ku hareeraysan baa noloshiisa raadka ugu weyn ku leh cuquushu waxay taxliilisaa waxa ay siiso xawaasta dibaddu waxay dhegtu maqasho waxay ishu aragto waxaad cunto waxaas baa jidh ahaan aad ku kortaa oo noloshaada caafimaad saamayn weyn ku leh sidaad u fakeraysana saamayn weyn ku leh walidaalika bay waxay dhahaan qof waliba kayfkiisa gaarkaa godkiisa gaarkaa buu ku jira ummaduhu markaa si ay aydhantatigooda u ilaashadaan ayaa guriga iyo dugsiga iyo iskuulka iyo jaarka iyo shaarican agagaarkaaga ah iyo masaajidka iyo wasaa'ilu tacliimka iyo wasaa'ilu liclaamka iyo nidaamka dowladnimo waxaasoo dhammi waxay u dhisan yihiin ummad kastaba inay u ilaaliso huwiyada ay leedahay su-aashu markaa waxay tahay haddaba innagu sidee baynu huwiyadeenna u ilaashan karnaa dadnimadeenna iyo diinkeenna iyo magaceenna saynu ilaashan karnaa waa haddii aynu alwacyu bidaat leenahay haddaynu is-ognahay kaynu nahay isgaranayno u khatidno mustaqbalka soo socda waxaynu noqon lahayn u diyaargarowno dagaalka dunidu isku haysa aqoonsiga ah in aynu noqon karno dad mabaadi'dooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooda la ictiraafi karo aydhantatigu waxay dhahdaan waa caqaa'idda dadku haysto mabaadi'da ay ku dhaqmaan bulsho ama ummadi khasaa'ista gaare ay leedahay ummadaha kale kaga soocan tahay innaga ka umma ahaan ilaahay wuxuu ina leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ka umma islaamiya waxaad tihiin dadka kuwii ugu khayr badnaa ee ilaahay dadka u soo saaray dadka samaha fartaan xumahana waa ka reebtaan ilaahayna waa rumaysaan khayriyada ummadda tani waxay ka soo burqanaysaa oo ka dhalanaya gooniisutaaggeeda dhaqameed qaanuuneed shareeceed diimeed caqiido akhlaaqeed walidaalik baa markay mas'aladu joogto identity ma aha waxa bini aadamku kala qaato ilaahay wuxuu leeyahy lakum diinukum waliya diin waxaad ku tidhaahdaa dadka diintiinaa leediin waliba culammadu waxay dhahdaan addiinu fii hada almawqic waa dhaqan oo dhan kiinaa leediin anana kaayagaanu haysannaa waxaa ilaahay inoo tilmaamaya keennu inuu dhammaystiran yahay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waxaynu u baahanay markaa qofka mu'minka ahi ama ummadda islaamka inay caqiidadeeda xejisato intimaa u yeelato bini aadamku waa groupinga inuu groupkaa ka tirsanaado ku faano waxa uu haysto ixtiraamo qiyamka ama valueska ay leedahay xadaaradiisu iyo thaqaafadiisu kor u muujiyo shacaa'irta iyo astaamaha diimeeda lagu yaqaano xejisto waxa uu rumaysan yahay dareemo tamayuska ama soocnaanta uu kuwa kale ka soocan yahay fardan wa jamaacatan
ku kaco inuu ummadda inta kala gaadhsiiyo alrisaala waajibu tabliiq diinta ilaahay subxaana wa tacaala u soo dhiibay markhaatina ku noqdo ummadda maanta waxaynu ku noolay haddaba caalam isu furmay qaaradaha dunidao dhamma isu furmeen waa caalam afkaar cusubi oo diimaha laga sii xoroobaya ay taagantay waxaa loo arkaa qadaayaadka valueska iyo akhlaaqiyaadku inay nisbi yihiin awal bini aadamku wuxuu rumaysanaa qiyamku caalamiga ahi inuu haabitna yahay wax suganna yahay caalamina yahay kuwani waxay ku dhawaaqayaan waa wax nisbiya ma aha wax universal ah waa aragtiyo ku koraya meelo ama xaadinaad allaadiiniya oo allaa adriya oo allaa ubaaliya bay yidhaahdaan meele aan diinta la haysanin oo maanta dunida waxaa aad u badan dhallinyarada yurub joogta waxay yidhaahdaan xisaayadadooda dambe boqolkiiba 70 waxba ma rumaysnaa da'yarka 29 jir ka yar da'yarka 29 jir ka yar ilaah ma rumaysnaa ma waxba ma rumaysnaa waa atheism dadkaan atheismka cad haysanina waxay haystaan bay yidhahdaan abatheismku waa laa ubaali waa sidii aan ilaah jirin buu u nool yahay yacni masalada philosophically ka murmi maayo laakiin dhaqankiisa iyo qaabku u nool yahay waa qaab aan diini ka jirin qaarkood waa agnostics waa laa adri kuwii hore waxay lahayn ilaah ma jiro kuwani waxay leeyihin inuu jiro iyo inaanu jirinba ma ogin inuu jirana garan mayno inaanu jirinna garan mayno qaarkood waa skeptiis waa mutashakikiin qaarkood waxay aaminsan yihiin philosopherskoodii waaweyna ka mid pantheism waa waxdat alwujuud ilaah iyo kownku inay isku mid yihiin afkaartani weligeedba dunida way soo joogtay ma cusba laakiin waagii hore waxay ahaan jirtay goobaha falsafadda iyo dadyow filosofara iyo dad farakutirsi ahi waxay rumaysan yihiin laakiin maanta waxay taa kaga gadisantahay afkaartu ma cusba laakiin maanta waxay isu bedeshay inay diin caalamiya laga dhigo waxay tii hore kaga gadisantahay awalba falsafadda waa lagu dhigan jiray taariikhul adyaanna waa lagu arki jiray taariikhul falsafana waa lagu arki jiray laakiin waxay hadda kaga gadisantahay waxa loo bedelay umamkoo dhan in laga simo oo xataa la bilaabo in caruurta yaryar lagu tarbeeyo in buugkiis loo qoro awal buugagta dee falsafada loo qorjiyo dadka ahlulcilmiga iyo dadkaas inay doodaha galaan hadda waxaa loogu talagalay in lagu tarbeeyo caruurta bugaag caruur loo qoray oo maalan anaka haris buuggeeda la yidhaha anaa tasaal waxbaa isweydiinaya waa ilxaad ay leeyihin caruurtaa loogu talagalay waxay gaadhay in ay qoraan waxay iminka u yaqaaniin dumis books qolada sayniska awal waxay qori jireen kutub alaqbiya wax la yidhaahdo yacni culumta bugaag fudaydisa oo fanni kastoo kugu adkaada haddaad dumis book soo iibsato si basiita loo sharxaya markiiba waad fahmaysaa marka waxay dhahaan kutub alaqbiya waa qolayahan akademika raba inay culumta jilciyaan ayaa kutubtan adag inta laga tagay baa kutaaba waxa loo qoray si fudud oo haddaad imika nadka ku dhufato dumis bookska fanniga aad fahmi kari weydaba waxaad helaysaa 3-4 buug oo yidhahdaan aqbiyada loogu talagalay oo aad markiiba fahmayso dabeetana waxay qoreen the young atheist handbook waaxid murtad asalkiisii hore ahaa ee bangladesh alum shaha ayaa qoray tagasbuugga ciyaalka alladiidka ah ciyaalkaan ilaahay rumaysnayn baa la rabaa tagasbuug in loo qoro ay haysan karaan markaasaa humanist association-kan ingiriiska BHA kuwan ay yidhaahdaan na intay badiyeen ayay waxa laaliya waxa secondary school ku yaala
ingiriiska intiisa badan England iyo Wales Scottishka marka laga yimaado inta kale waxa ku yaala ayaa loo wada qaybiyey waa caruurta oo dacwa loo furayo in la gaarsiiyo diin la'aanta markii ay dhacday 11 September wixii ka dambeeyay dawladda badani waxay u janjeersadeen inay diimaha la dagaalamaan saadaradeed barnaamijta idaaciga ee fadaaga ka baxda ee dunida oo dhan loo iclaamiyo iyo waraysiyada jaraa'idku qaadaan iyo waxa loo badiyay dadyawa ku caanbaxay atheismka qoyaanada jaamacaadka joogay ee waxaan rumaysnaa ayaa loo sameeyay talmiic in la soo caanbixiyo dunidu barato maalin walba usbuuciiba mar in waraysi laga qaado mid iyaga ka mid ah oo barnaamijta ugu caansan markaasi uu ka soo baxo intay soo dhaafiyeen ayay urur diimeed noqdeen hadda urur diimeed Atheist Alliance baa la yidhaahdaa Atheist Alliance International sanadkiiba mar bay isugu yimaadeen atheiska caalamka oo dhami magaalooyinka waaweyn ee dunida mid ka mid ah bale kursi baa laga siiyey goobaha diinta xiwaarul adyaankan ay sheegaanba kursi laga siiyey bale ingiriiska maanta waxay ku leeyihiin kiniisado diin laawayaasha waa kiniisadada non religious churches bay yidhaahdaan kiniisadaha diin laawayaasha oo khawaar ruuxiya iska haya markaa meel intay isugu yimaadaan ayaa waxoogaa heesa loo saaraa la boodboodsiiyaa sidii intii ay kiniisadu samayn jirtay maalinta axad oo kale wax u dhigma in loo sameeyo oo waxa la yidhahdaa waa non religious churcheska waxay leeyihiin iclaamaad dadka loogu yeedhayo maalan basaska London dhex mara baskan cad ee labada dabaqaysa saarka ah waxay u sameeyeen iclaanaad dhinac kaga dhigsan oo iyagu lacagtiisa bixiyeen oo la yidhaahdo there is probably no God stop warring and enjoy your life bay yidhaahdaan hubantii ilaah ma jiro warwarka jooji oo noloshaada ku raaxayso ayaa dhinaca kaga qoran baska dadku fuulo yani waa diin la faafinayo waxaan weedhaha kan idinku tilmaamaya waxa weeyaan caalamka duulaan xoogan baa ka jira oo diin ah ilhaadi oo la faafinayo oo da'yarka iyo dadka akademika iyo dadka soo socda lagu faafinayo insaankuna asliyan xaajatul intimaa kama maarmo inuu cid ku tiirsanaado laakiin su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan dadka muslimiinta intay feejig yihiin intee baa dadkooda akademiga ama dhallinyaradooda jaamacaadka dhigtaa ay usuulu diinihim sugeen intee bay diintooda ka jaahil yihiin ama se ay aqoon u leeyihiin diintu horta ogow ma aha dhaqamadan reeru iska haysteen iyo meelaha kan intaa ma aha inta dooda lagu galo ama mabaadi'da lagu xejiyo ama shakiga la iskaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay caqiidadaada inaad si dhaba u baratid waxaynu isu wada haysanaa inaynu diinta naqaano laakiin way yartay waxaynu ka naqaanaa kitaab ullahi waqaara kabiira masaaxati almuktashafa cindanana aad bay u yartay sida awgeed أسئلة الكبرى وين جوابها لا فيلسوف كي بني آدم كوكو مرمى حقان كايمي حقان كصعدة محانا حي تريد محان كقبانية وسؤالها أي فلسفة دورنا مكو وريكتو علماء عقيدة الإله كور رمونا مكو وريقان علماء نفسي انتو بدنا يكو وريقان علماء الاجتماع يكو وريقان حقوقيين تو يكو وريقان إن لحديدة كماطي marka darsigu wuxuu ku saabsan yahay inaan baranno inaan tahay insaan muslima oo Soomaaliyeed waa leeyahay iskala hooseeya leeyarka ugu sarreeya waxaan leenahay insaan baanay xadaaradan dambe ama madba aan idin sheegay bini aadamka insaannimada uu ka saaraya dad akhridaan kutubtan ka waramaysa usul al-akhlaaq iyo mawqif al-malaaxida iyo waxay ka taagan yihiin waa inay values-ka la dagaalamayaan bini aadamkuna values-ku kaga soocan yahay xoolaha hadduu values-ku lumo maalan values-ka ku saabsan guurku hadduu lumo oo la yidhaahdo dadku sida xooluhu mushaac yahay ama dadka iyo xoolaha isguursan kara
sida filosofkooda akhlaaqda waa falsafat al-akhlaaq professorka dhiga ayaa taa rumaysan dadkii xoolaa in la isku daro marka hadduu valuesku dhinmo la burburiyo bini aadamnimada lafteeda burburaysa dadweynaha diimaha rumaysani waxay isku raacsiisan yihiin in valueska bini aadamnimada la ilaaliyo kow markaa waxaan leenahay insaan baan ahay insaannimadii waa laga soo horjeedaa dad waxaa u dagaalamaysaa inaad bini aadam noqoto oo valueskii aadamuhu uu hidiya dhaqan u lahaa ilaa nebi aadam ka soo bilow bini aadamku nin iyo gabadh buu ahaa usro kale ma jirin maanta si qaanuunka caalamiga waxa lagu daray usradu inay intaa ka badantay usrada waxa la yidhaahdaa maxaa reer la yidhaahdaa nebi aadam laga soo bilaabay ilaa hadda bini aadamku wuxuu yaqaanay reer in la yidhaahdo maxay nin iyo gabadh sacanka maaha haddase united nationku wuxuu qoray iyo waxa dunida lagu faafinayo iyo dawlado badan oo dunida ka mid ah waxay qirteen waxa weeyaan reerku inuu intaa ka badan yahay laba nin baa reera laba dumaraa reera dad iyo xoolaa reera wixii la doonaa reera hadda wixii la doonaa reera idan waa valuegii bini aadamnimada oo laga tegay diin weli maynan ka hadal waa valuegii insaaniga ahaa ee abin can jaddin aadamaha inta taariikhdiisa la hayo lagu hayay oo la tilmaamayo inuu qaldan yahay marka waxaan leenahay insaannimo bini aadamnimo identity abaa dunidu u dagaalamaysa hadda mar labaad gruubka insaannimada aqbalay waxaan kaga gedisanay inaanu muslimnay inaan ilaah rumaysannay oo aakhiro rumaysannay oo rusul rumaysannay oo kutub rumaysannay oo alqadaa walqadar rumaysannay kuwa rumayntooduna adilo caqliya iyo cilmiya bay u baahan yihiin awal waxaad ku noolayd meel dadka kula joogoo dhamm islaam yihiin waxaad ku noolayd meel su-aasha ah ilaahay ma jiraa mise ma jiraan cidiba isweydiin ee dadku ku wada qanacsay in ilaahay jiro meel aan su-aasha ah la isweydiinin ilaahay rusul ma soo diraa mise ma soo diro in rusul ilaahay soo diri jiray ay jirto baad rumaysnayd meel baad ku noolayd aakhiro aanay questionable ahayn meel baad ku noolayd ahayd maxay kutubta in ilaahay soo diray iminka kulluha calaamatu su-aal baa taagan waxaana taaganaya dunida isu furantay iyo dadyawga mabaadi'dan qaatay oo diin ah oo faafinaya oo idaacada leh oo tv leh oo academic schools leh oo wax walba leh oo dawlado waaweynina ay taageerayaan waayo qaybaha hore dee dawladaha yurub qaybo ka mida baa madaxdu aanay ahayn kuwa bini aadamka ka baxay ay yihiinaan sheegayo valueska bini aadamka kuwa dhaafay bay ka mid yihiin madax badan madaxdaasi waxay qaateen wadannada qaarkood in lagu qasbo tacliinta laga soo bilaabo kindergartenka ilmaha yaree 4 jirka ah baa loo bilaabaya wadannada badh in usradii la bedelay in la dhigo oo la yidhaahdo ardaydan yare kalaaska soo galay kana 2 aabbuu leeyahay kana 2 hooyuu leeyahay kana aabbiyo hooyuu leeyahay markaa dadku inay caadi tahay oo ilmuhu la soo qabsado isagoo jooga kindergartenka aan iskuulba soo gaadhin waxaan leenahay marka hadda dhallinyaro badan baa jiroo ka murma meelaha kan ee facebookyada iyo waxoogaaga kan soomaaliduna waa dad warka aad isu gaadhgaadhsiiya weliba waa dad xataa hadduu shakiyo shakiguu faafinaya war bal horta meel gaadho markaad waxuun ku qanacdo faaf markuu shakiyo shakiguu faafinaya waxaan leenahay marka islaamnimadeennu waa inay noqotaa islaamnimo cilmi ku salaysan kitaabka qur'aan ah arkaanul iimaanka aan sheegaynoo dhan adilo caqliyuu ku sugaya idinku waxaa u haysataan ama dadka badh waxay isaga haystaan adilo samciya inuu ku sugayo war qur-aanka dad gaalaa baa lagula hadlayay qur-aanku markuu soo degayey muslim qudha lamuu hadlayne gaal baa lala hadlayay qur-aankan baana islaaminayo lagula hadlaya isagaanay ku qorantay markaa daliilka caqliga ahi daliilka caqliga ee qofka lagula hadlaya isaga ku yaali laakiin wuxuu inooga baahan yahay baxthi iyo baadhitaan waxaan leenahay markaa insaan muslima oo soomaaliya
soomaaliya maxaan u leeyahay soomaalinimadu waa culture iyo af imika waxaad moodaa afka soomaaligu inuu sii dhimanayo sii socdo inaynu u qaadannay waxyaabo yar oo aan buurayn inaynu wax weyn moodno oo afafka kale inay afaf waaweyn yihiin afafku afkii cilmiga lagu qoraana waa af cilmiyeed buu noqdaa afkii jahliga lagu qoraana af jahliyeed buu noqdaa haddii afkiina cilmi ku qortaanna af cilmiyuu soo baxaya haddii uun jahli lagu qorana af jahliya buu soo baxaya si awgeed waxaan leenahay caqiidaan haysannaa kownka ama universka aragti kaa siinaysa qofka bini aadamka aragti kaa siinaysa nolosha aragti kaa siinaysa meesha lagu dambayn doono aragti kaa siinaysa taariikhda aadanaha aragti kaa siinaysa mustaqbalka aadanaha iyo xaggu u socdana aragti kaa siinaysa walidalik baa ilaahay nebiga wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo nusugayga cibaadadayda gowracayga noloshayda iyo geeridaydaba lilaahi rabbi alcaalamiin caqiidadu markaa waa rukunka koowaad ee qofka aydhantatigiisa sheegta caqiidada waxa ka dhambalma waxa la yidhahdaa alwalaa walbaraa oo sheegaya ciddaa isku bahdatiin markay baabkan joogto iyo ciddaa kala bahdatiin sheegaya intimaagaagu cidduu ka tirsan yahay iyo cidda aanad ka tirsanayn muctaqadku markaa bulsho kasta iyo ummad kasta wuxuu asal u yahay aydhantatiga ay haysato hadduu muctaqadku ilxaad yahayna aydhantatigu asal u yihi hadduu caqiido ilaahay rumaysan yahayna aydhantatigaagu asal u yahay luqadu aqaafadaaday asal u tahay waxa aad dhaqan iyo qaab nololeed sideeto si awgeed waxaynu leenahay waa inaynu kala garannaa maxaa bini aadamku wadaagaa oo u kala qaataa maxaanse la wadaagin dadka aan haysanin mawaasiinta wax lagu qiyaasaa waxay moodaan ninkii ka technology sarreeyaa wax walba inuu ka sarreeyo mar hadduu technology sare leeyahay inuu wax walba haysto waxna kama jiraan technologygu noloshuu fudaydiyaa qofka bini aadamkaa noloshiisu fudaydiyaa laakiin qofka bini aadamkaa siduu u fakerayo iyo wuxuu rumaysan yahay iyo qalbigiisa waxa ku jira waxba kama taro walidalik dadka jabaa aqaafatulghaalib bay qaataan ninka xoog badan leh aqaafadiisa iska qaataan laakiin dadka mawaasiinta haysta saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baadiyay ku koreen meel aan waxba oolin bay joogeen cilmi hore may haysanin laakiin caqiidaiyo diin bay aamineen caqiidaiyo diintaasi waxay ka dhigtay inay isu arkaan asaatidat alcaalam inay yihiin waayo risaalatu samaa waxyu samaa aqoonta waxaa la yidhahdaa waa laba waxa way yidhaahdaan waa aqoonta cirka ka soo degtay ambiyada loo soo sheego iyo aqoonta ku saabsan kownkan daraasayntiisa ama in bini aadam ha la daraaseeyo ama maadada ha la daraaseeye kownka daraasayntiisa ta samada ka timaada gaf ma leh inaad adigu si qaldan u fahamta mooyaane ta dunida ka timaadaase waa try and error waa wax la tijaabiyo la qaldamo la tijaabiyo la saxo waxa dunida aadanuhu sameeyaa waa wax la kala dhaxlo oo midba mid bay ku dul dhisantay haddii kuwa hore la waayi lahaa kuwa dambana ma joogeen yani technologyga yurub ma jireen haddaanay xadaaradii muslimiintu soo marin xadaarada muslimiintu wixii practicalka ku saabsanaa in badaro ka midi ma jirteen ama way gaabin lahayd haddaanay xadaaradii hore ay soo naqliyeen ka jirin bini aadamku wixii bini aadamkii hore sameeyuu wax ku sii dul dhistaa saasaanu u socday laakiin marka ay joogto maxaynu qaadanaynaa maxaynu se ka tegaynaa waa inaynu kala garannaa yes waa qaadanaynaa wixii qadiya cilmiya ah xaqaa'iq cilmiya wixii noqda laakiin qaadan mayno valueska iyo dhaqamada khilaafsan kitaabka iyo sunnaan haysanno munfatix waan nahay
وتجارب بني آدم كوحي فايدة لو قادنا لكن منبطحين منهن ودتك اسكما دبصوا عنه مقلدين منهن مركا اعتماده في باب العقائد والتقاليد والأحكام مركا يشوكته هي قوانين مركا يشوكته ولذلك با إلهي القرآن كوحي نوت المامية آدنوه إنو كالقد السنان كره وانا نبهين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورميسنا آدنوه إنو آدنه وديه شعوبية قبائلنا هي كدغ كلا ميدبا ميدب ugu faari mayno marka cidnaba quruxna ugu faari mayno midnaba way sanca qurayno wadanay ilaahi bayna wada abuuray kan sanka yar liya kan seka weyn liya kan cadiya kan madow adigu shaqo kuma lihid doorashana uma lihid ilaahi bayna wada abuuray ilaahi bayna tilmaamaya aayadka ilaahi lagu gartay inay tay afafkiinan kala gadisan iyo midabadiinan kala gadisan iyo qabaa'ilkiinan kala gadisan waa wax ilaahay lagu gartaa ilaahay ku tilmaamaya sida khalqu samaawaati wal ardi ayat u tahay ayu ikhtilaafu al-alsin wal alwan ayat u yahay marka manihin waxaan rumaysanay wax bini aadamka ku kala sooca maaha midabka wax bini aadamka ku kala sooca maaha qaabku uu qorqoran yahay ama uu dhisan yahay laakiin waxaan kala leenahay wax kale bini aadamka lagu kala sooca jira waa wuxuu doorasho u leeyahay wuxuu isagu doorasho u leeyahay cidba ku doortaabo dhinaceeda raacaya dabeetana ilaahay wuxuu leeyahay waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa fi al-akhirati min al-khasirin ghayra al-islam wixii haysta waa tamyiz waa ka socnaanayna waxaanu kaga soconay aqaa'id waxaanu kaga soconay aqaa'ida waxa ka dhambasha maxaa ka dhambalma man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum bu nabigu leeyahay cidda cid isu ekaysiisa iyagu ka mid yahay laysa minna man tashabbaha bighayrina labada xadiisba waa xasan iyo saxiix sadaradeed aqaa'ida waxba ka dhambalma oo ka soo baxa waxaas cidna kaga dayan mayno waxay yidhaahdaan shicaarka sare waxa uu wakiil ka yahay gudaha waxa ku jira shicaarku waa waxaan la qaato sloganiska bini aadamku qaato sloganiska maxaa loo qaataa litamayuz maalan askartan inala joogtaa imka direeska la istaata direeska maskaxdeena wuxuu sheegayaa markaad qof direeskaas sita aragto waxaad garanaysaa inuu yahay maxay ciidan inuu yahay baad garanaysaa khamiiskan iyo intaan aan sita markaad aragto innaga culture-keenna marka loo eego markiiba waxa kugu soo dhacaysa kani waa wadaad yani maradan baa sheegaysaa maradan baa waxay ka tarjumaysaa dhaqan walidaalika waxay yidhaahdaan libaasku waa madhar min madaahir alhuwiya baa la yidhaha caqiidada ka kaale marada la xidhaa waxay ka tarjuntaa bini aadamka huwiyadiisa identitygiisa baadisoociisa iyo aqoonsigiisa ayay ka tarjuntaa مثلا قفك مسلم كا مرو ليه مرض قفك مسلم كي حدا وين ساتر نغطاه ومرو شركة استرته ومرو طاهرة والنجاسة اللي إلالية ومرو أنيق وقفك كو حرقوريو إن الله جميل يحب الجمال لكن مرض مركي انت أصو صفة وضيالته أشكالك كسيد دنبايا ثقافات قومية ويان waxaad arki doontaa marka xijaab Pakistaniya iyo xijaab Soomaaliya iyo xijaab Caraba iyo xijaab wixiiba waa xijaabo intii la rabay way sameeyeen laakiin kani identity islaamnimo waa wada haystaan dhamaantood waxay se ku kala gadisan yihiin maxaa la yiraahdaa waxyaabaha qowmi oo iyaguna in badan ku salaysan climate-ka mesela dadka dhulka qabooba degan deehugoodu waa dhar adag dhulka dadka qabooba degan hugoodu kulayla degan hugoodu cadaan buu badan yahay waxayna markaa leenahay cumaamada sida loo xidho in sida Yamanta aad u xidhatay inaad saa Cumaanta u xidhatay iyo saalixiyadeena inaad u xidhataa shaakil maaha laakiin waxay leeyihiin maradu waa madhar
ama waa muuqaalada identity-ga ka mid ah. Si kale haddaan u tilmaamo waa shaara bay yidhahdaan, waa astaan. hodheel haddaad soo gasho imika ood cunno istiraahdo dalbo restaurant, waxaad eegaysaa qof dirays gaara sita, waayo calaamad wuxuu u yahay kabaryerigaasi raashinka qaadaya, astaan baad ku eeganaysaa, waa calaamad. idan maradu diin bay ka tarjuntaa, oo dhaqan iyo caqiiday ka turjuntaa, oo shaqay ka tarjuntaa, oo waxyaabo badan bay maryuu ka tarjumi karaan. waa ceeb markaa dad identity leh inay identity kale qallidaan. maalan qof muslimi inaad maro daldalaacsan oo bowdiyu muuqyaan oo loo identity kalead matelaysaa. marka identity islaamnimada hawaad ka sii socotaa, wax kalead matelaysaa. مثلا النبي محمد وحولي تما بدنها حيرنا عليه الصلاة والسلام بدنها الله هدنا غير باديه هني الصوماليات ما دام أن قفرة يو حاسب بدنين بيا بدنا وحلقهم ما يداشرين عرفت تما ويكحير يشرين لكن هذانا إن كيا إن تصل له كلا قرتابة وسبين شرين إن ترى فود يربى لور بيشرو فود ليبى لور يشرين إن كنا دور بالله سبين شرين وهذا غير مجال كي مركا كير الدبدة كي بدو حريص الوركين هو دور يعني وغلادي هود كتمية ولي حلية تمية إما كان الدور كي بحر رقم هودين يعني إن شاء الله يتدور روحها عي أو وحلو أركيين يرب بادية كي يموليتا ما حد دور كي شاء الله يتا عيدا هكذا جاي مانتا وأيضا تتجي نلوميننا شقاها وشقا فدو وحادو سيوين ماها إن كستو دين تكسور شيدو لكن waa astaan buu wuxuu yahay dadka xun calaamado ay qaataan galbeedka deegaa qaar ka mid ah calaamadaha iyo maryaha iyo waxa haddaad aragto wuxuu astaan u yahay group ideology aaminsan. waxaad arkaysaa dad Soomaaliyeed oo maryahoodu noocii waraduna goormad kuwan ka biirtay maba oga, laakiin waa uun maadaama ay galbeedka ka timi wuxuu isku dayayaa inuu qaato. النبي عليه الصلاة والسلام حليه لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم أو لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية كوي دين كوه الرئي ودوين كودي بالراعسان تاكا تاكي يردو باو راعي دونتان حتى هدي قد مسلو قلي قلان وكذا بقلي دونتان قد مسلو قلي أما مساعة قلي ما همال قروح له ما همال وناق له. لكن نبي مثال وحوق بحيي سيد الله قادن دونا وحن معنا نلاشا كلهين قد مسلو قلي إن قال هذا وح معنا السمين يا ماها ما كان دركتم مد مرية شيح حنسيته شيخ عبد الرشيد علي الصوفية محاضرة آخر الرياويل الصومالية يوروب كا سروال شيح حسي تايسة سوتاقي لو مركان ربينه وحويديو رسول حولي ولا الله يالي تاري سواشي كتشوامي ولا الكين مردي سوي دلدلاع سنتي وعن وحي سقود دربوه سروال في عنا ونقضني فأرنتي وعقلك الصومالي يسو شيء وايو marada hadii intaad bowdada ka soo dildilaaciso cawradaada muujiso inaad haddana ku xaragootaa aydhanta tigaaga waad loos garaysay weeyaan. mara dildilaacsan qofku uu qaadan karaa. halka kan markaynu joogno dadka waalan astaan baynu ku naqaanaa. haddaad aragto maryo dildilaacsan nin sita oo timo raama leh timihiisu raamaysteen oo meel fadhiya waxaad garanaysaa nin maanka lagaga jira inuu yahay. waxaanad u arkaysaa wax xun. laakiin markaad aydhanta tiga lumiso ee aad wax walba raacayso TV-gu maad ka arkaysaa mid raama leh oo maryaa dildilacsaday oo boodboodayo la leeyahay waa xidigii kubadda cagta ama waa heesaagii hebel ahaa ama waa Bob Marley ama waa kan waa Michael waa wax qariib ah. dee intii baad adna ku dayanaysa. beri baa magaalan tegey dabeetana niman dhalinyaro baan waxoogaa waa akhriyey markaa waqtigii Michael Jackson uu dunida calanka u sitay heesaha. Michael Jackson baa wuxuu soo xidhay surwaal bowdada iyo inta tan jidhka ka balaqbalaqsan oo aad u ballaadhan canqowgana kor uga qaadan
oo sunnada waafaqsan adigu intaan aynu u tolan lahayn malaa duniduna markaa waxay qaadan jirtay surwaal dheer oo dhulka jiitamaya dabeetana nin dhallinyaradii ka mida surwaalkii soo xidhay kaasoo arkay anigoo eegayo sheekh waa mooda maca sunna buu yidhi sheekh waa markii hore sunnada lama qaadanaynin laakiin markuu michael xidhay ayay noqotay mooda maca sunna yani waxaan uga dan leeyahay qadiyada jirtaa waxay tahay hooyada qofku hadduu lumiyo si fudud buu markaasi u milmayaa waad milmaysaa hooyadan rabnaa waa maxay aad lumisay waa الاعتزاز بدينك وبعقيدتك وبمبادئك وبالكتاب والسنة وإنad ku faanto oo muujisatid inaad muslim tahay إلهي muxuu leeyay ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين yaa ka war fiican baa ilaahay idhika dadka diinta ugu yeedha ee isaguna dhaqanka wanaagsan ee ku faane ee ku biiro ee leh war hooy anugu muslimkaan ka mid ahay ku dhawaaqaya yactazu bidiini ictizaaz binaadamku qalbigu ka jaba haddii markaasi identitygaaga uu lumo oo ah caqaa'idii oo ah akhlaaqiyaadkii oo ah valueskii oo ah diintaadii iyo dhaqankaaga iyo thaqaafadaadii iyo afkaagii hadday lunto dameeridhaan raacday baad noqonaysaa markaa waxaad aragtaba cid ku dayataad arki doontaa markaasoo ilbaxnimada u haysata oo kule waa modernization waa xadaatha waa maxaa la yidhahaa casraaniya adigu wakhtiga lama socotid wadaad waxaad joogtaa qarnigii 14aad baad adigu nooshay qarnigii 14aad ceeb ma aha ee waxaa ceeb ah dadku inuu dadnimada iyo biniaadamnimada ka lumo qarnigii 14aad hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambana dad fiican baa zamanku ma aha ee waa biniaadamka iyo valuesku haysto biniaadamka iyo valueska uu haysto weeyaan caalamku maanta wuxuu xidhxidhan yahay dad badan inay dadka diinta ka saaraan ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wadda kathiirun min ahli lkitaab low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara in badan oo ahlu kitaabka ka mida waxay jecel yihiin diintiinna inay idinka saaraan oo gaala idinka dhigaan xasadan min cindi anfusihim laakiin imika iyagiina waa laga saarayba nin sheekho soomaaliyeed oo jaamacadka reer galbeedka joogaa wuxuu yidhi jaamacadda markaan soo galo oday kristanaa jooga buu yidhi odaygaa sidaan walaalanaan laabtaysa saaraa buu yidhi waayo inta kale brofesoradu ilaahayba ma rumaysna buu yidhi marka kanunbaaba ilaahay rumaysanaanu tal noqonnay buu leeyay yacni kanbay isdhowaysteen markuu u arkay dadkii kale halka ay sii marayaan ayuha alaxiba waxaan leenahay waxaynu u baahannahay dhaqankeennii afkeennii caqiidadeennii diinteennii inaynu ilaalinno inaynu da'yarteenna yaryar ku soo rabayno luqmaan inankiisii markuu la telinayay wuxuu uga bilaabay ilaahay ninka luqmaan la yidhaahdo oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyey xikmaddaa wax ka mid oo ah ilmihiisii uu la telinayey ilmihiisa talooyinkuu siiyey 3 shay bay ku koobnaayeen caqiida oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaasuu kula telinayay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ilmahaygii yaraayow ilaahay u shariik yeelin sababtu waa maxay ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa cadaalad darrada ugu weyn aadanaa maanta nool xuquuq baa maqashaan soo maaha xuquuqda xoolaha xuquuqda dhirta xuquuqda biniaadamka xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda kada wax xuquuqda ilaahay ka warramaya ma aragteen mise makhluuqaadkunbaa xuquuq le ilaahay xaq ma leh ilaahay baa ugu xaq weyn xaqiisuna waa in la caabudo sidaa ogeed buu luqmaan wuxuu uga bilaabay ilmihiisii inuu caqiidada u saxo uu u sheegana xaqa ilaahay inuu yahay in la caabudo oo uu sheegay inay dulmi taho ilaahay xaqiisa la dulminayo in loo shariik yeelaa dabeetana wuu u sii tilmaamay marka waxaan leenahay laga soo bilaabo ilmaha yar ilaa iyo inta waxbarasha socoto asalka waxbarashadu waa in huwiyada mujtamaca la sugo
dunida wasaaradaha waxbarashada shaqada koowaad ay qabtaan waa maxay? waa ummadda huwiyadeeda inay ilaaliso, kadib inay tacliinka ugu darto. inta badan jaamacaadka loogu talagalaa cilmiga iyo baxdiga iyo waxbarashada rasmiga ah. tani waa training hoose oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in la soo saaro ayay tacliintan hoose oo dhammi tahay. laakiin muhiimadda koowaad ee waxaasoo dhan ka weyni waa inay bulshada identitygeeda ilaaliso. ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan, dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan, maamulkooda wuu fududaadaa. haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sidaa loo maamulo. soomaali waxay idin maamulkeedu fududaado, laakiin laba mushkiloo yaryaroo ay leeyihiin baa weli loo taaglaayay. mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan. labada mushkiladood Soomaalida mushkiladeedu wixii intaa ka sareeya waa jahli, aqoon darro. aynu dunida sida wax loo noqdana inaan aqoonin, haddii la murmo sida loo xalilana inaan aqoonin xabad mooyaane. waxaan u malaynayaa waqtigu inuu iska gabagabayay, mala salaadkiina soo dhowye. waxaan isku dayayaa inaan iska koobo oo ah dunidu maanta way isu furantay. nin walibana ceesaantii buu ceel keenay. cid waliba inay afkaarteeda faafisaabay ku tala gashay. cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoon-yahano iyo waxbay u diyaarsadeen waxooda inay wadaan. innaguse waxaad mooddaa inaynu dayacannay. waa caalamulislaami kow ciddii maamulaysay iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa. caalamulislaami dowladaha ka jira waxa koowaad cadowga koowaad diinta u arkaan. cadowgooda koowaad diin bay u arkaan. aqoon-yahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka ugu dunida kale mujrimkaa la xidhaa, caalamulislaamigana aqoon-yahankaa la xidhaa. inta wax garanaysuunbaa xabsiga lagu guraa. ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa, dee waa ummad meelaan dhoweyn ku socota. marka waxaan idiin soo jeedinaya waxa weeyaan waddankan aynu degannahay idinka u aqoon-yahano dadkii u soo baxayaya. haddii idinka identitygiinuba uu labaclabac yahay, mustaqbalka waddankani waa madow. haddaa idinku dad sugban noqotaan, baritaa ummadda inta kalena sugi karaysaan. inaad sugantaan waxay u baahan tahay inaad diintiina barataan, inaad culturekiina barataan, inaad afkiina barataan, inaad ku faantaan. inferiority complex inaad ka qaadin waxaad rumaysantay. wax la qariyo maaha, wax la qariyo. saxaabi baadiye ka yimi ayaa boqorkii beershiya markuu yidhi maxaa u soo baxdeen, wuxuu yidhi waxaan u soo baxnay linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illah. allahu ibtacathana buu yidhi, ilaahay baa na soo saaro, waxna loo soo saaray bini aadamka is addoonsanaya inaynu ka saarro ilaahay dadka addoommo uga dhigno. xurriya baanu wadnaa buu leeyahy. waa qof mabaadi'du sitay, rumaysnaa, oo rabay inuu soo bandhigo u dagaalamayay. innaguna wixii diinteennu sheegaysayna waa laga xishoonayaaba xagga hoosey ku jiraan. inanka akademiga ahi inuu af ingiriisiga iyo ku faanaa buu jecel yahay. xogaaga ingiriisiga markuu ku hadlo ama beber af ingiriisi ku qoran markuu soo qoro, wuxuu soo arkayaa nin mutacalim oo khatar ah inuu yahay. ama haddii la yidhahdo arkaanulislaamka bal ka waran, waa iska dee wixii arrintii malcaamadda lagu hayn jiru maad wadaa buu leeyahay. wuxuu haystaa malcaamadaha iyo dugsi quraanada iyo meelaha wax lagaga sheekeeyana taada waa idhanta tigiisii. waa wuxuu aadanaa kale kaga socnaa. marka waxaan ku soo gabagabaynayaa dad akademiga baatiin waa inaan idhanta tigiinu lumin, isla markaana waa inaa caalankaa inaa idhanta tiga ummaddan u sugtaan, waa inaa idinku qaadaan. haddaa idinku xambaartaan da'yarta waa idinku dayanaysa. haddaase idinku da'yarta lumisaan, dee ummadda tan ilaahay bay leedahay subxaana wa tacaala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.